maxaabiistana waxay la xeer tahay oo ay la mid tahay oo la dembi tahay kuwa lagu haya laascaanood sababta kuwana loo sii deynayo kuwaan ay xabsi ugu jiraan waa in ay caddeeyaan nimankii ku baaqay odayaasha ahaa arrinkaas waa arrin khalad weeye. Garaad Cabdilaahi Axmed Sulub oo ka mid ah isimada deegaanada SSC Khaatumo gaar ahaan isimada gobolka Cayn ayaa shir jiraa'id uu caawa ku qabtay magaalada Buuhoodle waxa uu kaga hadlay baaqi isimadu maanta ay soo saareen ee ahaa in la sii daayo maxaabiistii lagu soo qabtay dagaalkii Maskax Buqle. Garaadka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. maanta caawa waxaan wax yar ka taabanayaa baaqi ka soo baxay isimada ka yimid laascaanood oo ku baaqay in la sii daayo maxaabiis ku xiran magaalada Buuhoodle taasoo bulshadu ay u aragtay wax arrin aad u khaldan oo xamaasad geliyay oo aad runtii looga soo horjeestay sababtoo ah maxaabiista marka la sii deynayo waa in uu ka horeeyo heshiis maxaabiis la isdhaafsadaa qaab iyo process la maray leedahay la iskama oran karo la sii daayo maxaabiis ciidana oo ka yimid Hargeysa oo ay sheegeen inay ahaayeen ciidanka SNM bihi mid kamid uu yahay taliye urur oo jooga Qorolugud isagoo ciidan ahaa ninka kalena waxa weeyaan waa ciidanka kale reer bariga Burco marka ciidamadan la qaftay ee dagaalamayay waanu haynaynaa inta heshiis ka dhacayo ee la isaga imanayo maxaabiistana waxay la xeer tahay oo ay la mid tahay oo la dembi tahay kuwa lagu haya laascaanood sababta kuwana loo sii deynayo kuwaan ay xabsi ugu jiraan waa in ay caddeeyaan nimankii ku baaqay odayaasha ahaa arrinkaas waa arrin khalad weeye. dagaalkii wali wuu socdaa waanu la isu hub urursanayaa nabad baanu 10 jeer ku baaqnay wax nooga soo jawaab ma jirto waanu jecelahay inaanu sii deyno laakiin qaabkii lagu sii deyn lahaa waa in la maraa habkii lagu sii deyn lahaa waa in la maraa ma jirto sabab iyadoo dagaalku socdo loo sii daayo maxaabiista la hayo waxaa mas'uuliyiin ka mas'uula sii deynteeda mas'uuliyiinta ku nool gobolkan waa in talana way u baahan tahay in laga tashado la sii daayo marka ay nabad dhacdo maxaabiis la dhaafsado waxa jirta maxaabiis la qabtay oo iyagu ay qabteen oo hayaan lama sii deyn waa la hayaa de la iskama sii deyn karo dadkuna raggii ay kuwani laayeen dad bay laayeen dagaal bay ku jireen waa askartii SNM ma aha wax aanu maaragtay de iyadoo waygii la mari jiray la mara mooyaan dad la iska sii deyn kara maaha cidda isku tiraahda sii daana iyada ka mas'uula mas'uuliyadda qaadaysa qofka isku daya in uu sii daayo maxaabiista dambiilayaasha ee dagaalka lagu qabtay waa la sii deynayaa oo dhib ma leh laakiin waa inay maraan systemkii iyo qaabkii maxaabiista lagu sii deyn jiray. Assalaamu calaykum.